kale halka inaga dhigaan daaroodka hayn adigu waxaad tahay nin mareexaana eeg inaad ir aniguna halkaan ahay waad garanaysaa nin geriya baan ahay adiga waxba kuguma soo kordhaan haddaad kor iyo hoos u baxdo maalinta ay waxay wax kugu soo kordhaan aad daarood noqoto maalintaasaad laandheero sheegan kartaa aniguna haddaan sidaa u dhaxo dee waad garanaysaayoo intaasoo quwadood oo kala duwan eeg inaad markaa ninka laandheeraha iyo ninka roorta taasaa lagu kala garanayaa halkana taariikh laguma samaysto wuxuu yidhi xasan iyo talxuhu waa midgaha xulufadoodii xasan iyo talxa xalaalkaa reerkaaga labadaasna midgaha xulufadoodii inay yihiin baa horta taariikhda kugu jirta aniga midgaan taariikhiguma jirta horta midgaan aan adiga ahayn daarood ma lah haddii uu laangaab jirana inaad er laangaabku waxaa lagu gartaa hoos hadduu u baxana waxba ma helo kor hadduu u baxana waxba ma helo adigu markaa ninka labadeenna yaa laandheera noqonaya bal mareexaan iyo geri cidda laandheera noqonaysa yay noqonaysaa sidwaaq baa kuu soo hadlay war waa nin laandheeraa oo absamaa oo laandheere dhalay oo kuumbadaa maalinta dambe karladax noqonaya oo ciiddaa ka badan weeyaan aniga waad garanaysaa nin geriya baan ahay markaad deegaanka joogto ninka kaa mas-uuleed nasabadiisa sheegata baan ahay nacala rabaaya ninka aad nasabadiisa sheegato ee cashuurta aad ku buuxsata baan ahay deegaanka qof walba qabiilkiisu ku joogaa ninka mareexaankaa markuu deegaanka joogo waa la wada garanaya waa nin geriya wallaahi bilaahi tallaahi hadday dhaqdhaqaaq tahay iyo haddii cashuur la bixinaya tahay iyo haddii xineeye iyo nolol hadday tahayba waa nin geriya weeye weliba jufada anigu aan ahay weye waa reer maxamuud waa nin isxaaq xasana oo reer maxamuuda weeye wallaahi bilaahi tallahi inaan been ka sheegin haddaad been moodaysaan rayd now waxaad ku qortaan shirka mareexaan iyo geri ku qora nalama kala qaadi jirin reer maxamuudow gerigii kale hadday saa yidhahdeen maxaad noo leedihiin maanta markaasaa la yidhi qabiil baa tihiin lagu yidhi youtubekay taalla inaad ero mid baa kuu sheegaya haddaba ninka laangaabkaa ee aan isogeyneen tuurta ku sidlay waxa weeyaan marka lasoo weeraro aan dhabarka u dhigan jirnay halkan kalaab hawsna aan hadli karin inaadeer ee af soomaaligu uu ku yaryahay waa adiga ummadda in la kala gartay ayaa fiican yatiisow nin mayda oo afka oo mataqaanaa xataa markuu rag la hadlayo waxa weeyaan hadduu ilaahay kuu roon yahay aad moodaysa inuu qur-aan akhriyayo uu masaajid ku jira aad moodayso ee aan la fahmayne aan حتى شن ويل أو أف سوماليا كورة شان ريركي سكسو تيجي نستقبل لصمن كلا حدارود لصمن كرتون هالكا كوبختية ميدة يا أنا إن هذا إسكال بحنا يوم أنت هبدي عن قبيل كي نقولنا نيجيريا ودنيا ديجان دو حرية هي التاريخ ده هذا كا هبدي أي نقطة إنه كرء بحنا وحوي نكون بقى نقولنا يدقتها ديجان كاستيديا أنت لاقي سكر بيان هدان قبل الله نقولنا يا أمد أم بلارن وح حصو هو دي ديجان يا قبيل ينولي سكر بس adigana aysan waxba inaadan ku soo kordhin midgaan inuu soo galo mooyaan aan meelna mid waxa ku kordhay midgaan yahay sideen u wada sheegan karnaa laandeeranimo iyo gobonimo iyo laandeeranimo sideen u wada sheegan karnaa oo isku meel uga toosi karnaa waniyo dadkan dee inaad yar waxa been kuu sheegtay eeg mareexaanka lagu sheegayo wad ogtahay oo siyaad barro kale taa soo maray siyaad barrana suuli siduu ugu baktiyey mareexaan dib dambe looma arag war carabka ka gooy nuurow mudgal mareexaan dambe oo noolaaday lama arag adiga haddii ay noqoto dadnimana inaad yaro gadoon bad ahaanaysaa anigu haddaan reerkayga ka soo togan kor u soo baxana nin ab iyo iskirleen intaba noqonaya oo dal iyo deegaan iyo dadba soo kordhayaan laakiin adiga waxba kuguma soo kordhaan habeenkay wax kuu soo kordhaan waa habeenkada aniga ay sheegato bal ka war aniguna nin intuu kaa maarmo dhankuu doona u dabaalan karaana yaa laandheeraa markaa halkaa inaga dhig soomaalida kale nama kala taqaano daarood nin walba halkuu kaga jiro ma garan karto hadda ninka isaaq nin walba isaaq halkuu isaaq kaga jiro waa garanayaa ninka hawiye halkuu kaga jiro waa garanayaa adigana si wanaagsan baad ku garanaysaa halkaa daarood kaga jirto haddaba adigoo midgaankaasa waxa weeyaan hadduu ilaahay kuu roo yahay inaad jid waaqiya geri soo aado waa anigoo aaday dee tifooyin hoose oo mareexaana eeg inaadeer waxaan kuu sheegayaa laandheeranimadu waa tan adiga dhakadaada ku qoran ee aad harsanaysa weeyaan nacallaa iyo midgaankaada haydda ku yaal waryaaheen goormaad markaa laandheera noqonaysaa inaad yarow halkan taariikh laguma samaysto midgaan yaroo miskiina oo hawraarsamaa oo aan waxba meelna u jirin oo qaawan baa tahay niyoo quulaha cunaya ee waxaad samaynaysaa niyo anu hal talan ku siinayaa sidaa awowyaashaa iyo maatidaadii maanta miidiyaha uga ooyeysay ee looga qarafaynaya laleeyahay halkan intaad annaga wakti nagu bixinayso inaad yar intaad kalaad hoos bulshada dhex joogto bacda hoos dhigato dee awowyaashaaba bac bay wataane oo wakaa loogu shubaya uurida laleeyahay way baahanayaane niyow ummadaada u gargaar taasaa maanta ku furan adiga ta kuu furan waa waddadaas maaha ninkii halkan ka hadli lahaa uma degan oo hodana oo kaa laandheeraysan oo laandheera dhalaya oo dhankay u dhaqaaqaanba waxa weeyaan wuxuu yidhi ninba wuxuu u dhalay awowgii la arki doonaa
nacalla rabaaya adoo awowgaana uun in adeer u ahaamadi stiilna adigu halkii uu awowgaa ka dhintay magacuu awowgaa ku dhintay taagan oo maalin aan bixi karin eeg oo dhalasho aan sheegan karin in adeer reena inaan kugu digto iyo inaan kugu tiigaalo midna u socon maayo sababtoo ah haddii eeg waxaa lagu xantaa kastuuma hawiyaa lagu xantaa in adeer reeraha aad la hadashana waad garanaysaa all of them waa wada jifo jifadaasna jifo walba waxay la mid tahay jifo hoose oo reerkaaga hoos dhigta eeg adiga geedkii awowgaabaad ku qallashay annaguna rag kala baxay oo baarqabeeyey oo nina ninuusan aqoon oo iyagu isku arka inay nin walba uu daaroodka wax ka sokeeyo aysan isku ahayn in adeer sidee markaa aynu u wada sheegan karnaa laandheeranimo nacalla rabaaya adigoo ay ah oo midgaan mooyaane wax kugu kordhaaba aysan jirin dhalasha habeenkaad aniga sheegatad laandheerata wallaahi bilaahi tallah gatuuso waxaan ku leeyahay bal halka ay kuugu badisa aynu aragne beritoole adigoo hawiyaa lagu arkaya adiga haddaan hadda laba beri kugu tiigaalno adoo hawiyaa lagu arkaya oo wallaahiya meega waa idii soo horta mudigala hiidmana mudgala war adduunna calabka kilaab xus wallaahi bilaahi nimcaano mudgalde nimcaano mudgalde waa hadashee waay horta waa idin salaamaya dhammaantiin soo dhawaada meeshaan horta aflagaado iyo qabiil lacaayo waxaa kumaana socon annagu arrin baan soo jeedinay fikraddiina baad ka leedihiin qof walba fikraddiisu uu meeshaan ka dhiibanayay arrintaasna waxaan u malaynaya arrin naafacayso haddaan nahay garaado dadkii tartarka miyaa qolka jooga niyo mudgalde niyo horta adigo niyo marka arrintaasaanu ka wada hadlaynay niman dhalinyaraa oo maaragtay ninkaa hiidmaanaya muxsin iyo arrintan keenay arrintaana waxay ahayd niman yahow daaroodka dhexdiisa waa waxaa ka dhex jira waa ogna iyo sida meega la iskula qaato qaabkuu yahay laakiin markii garoomada kale lagu soo dheelayo saaqa iyo hawiyahay nin maxaan ku dhahay nin walboo daarooda inuu kaftami karaa la rabaa oo ninna aan la dulmin markaan garoonka soo gelino 11 wiil oo funaanad maaliyad ku qoran tahay daarood iyo magacyada u dhamaystiran yihiin oo labisan oo diyaarsan aan soo gelino wada aftahanaa markaan garoonka soo gelino haddii nala leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel garoonka ma dheeli karaan oo laba dhibaataa jirto waxaas waxaan qaadan karna ma khalad baanu galnay niman isaaqaanu meeg la qaadanay nimankii markay diideen waxaana la gudbooneed inaanu dhahno niman yahow meegga droob buu naga yahay daarood waa siman yahay jifo kasto nin walbana oo meeshaan soo fariisana waa matalaa inaan dhahnay ahayd labadii nin intaan bedelnay baan laba nin cusub soo gelina meeggana sidii buu kusii socday horta waxa meegga nagala xiray oo hadda isaaq u leeyihiin daarood meeg la qaadan mayno waxa annaga iska xirnay cidna u eersan mayno nimankii ayaga ahaa maanta haddii haddana qolo kale aan hor fariisano labadii nin baana hor taagan marka horta arrintu halkaas ay ahayd si marka arrintaa looga baxo inaan maanta diiwaangelinta aan bilownay bal labada jifo in maanta madaxa la isku geliyo kooda istaaga ka dhaco ma ahane kan kale in lagu soo daro liig caadiga oo meeg uu qaadan karo nimankii saaqaana iyo dadkii kaloo meesha joogana waxay arrintaasi waxay dhaheen arrintaas waa soo dhaweynaynaa dad maaragtay arrinta asaas wax yeelaysaan annagu kuwanagii seerebiiga waxay dhaheen masaajidka galeen oo meelahan kala hoos ma imaadaan adinku kuwiinni ayagiiba idinka soo horreeya haddana waad yasaysaan oo dhexdiinniba baad ku dulminaysaan annaga waad naga horkeenaysaan adinkii waaweynaa gadaal baad istaagaysaan bay leeyihiin marka hadda nimanka in la hardiyo oo laftooda is hardiyaan arrintu halkaasa marka fikirku halkaasuu ka socday marka de waa sidaa gurxan waa ujeedaa gurxan waa ku salaamaya awow aad iyo aad soo dhow waxaa samaysaa garaadow ii soo xitiniyo waxa weeyaan mar dhowda mashquulsanaa ayaan marka arrintu sidaasay marka ku socotaa meeg iyo cay iyo meesha ma taalo iyo maaragtay wareer de mudug ka daayo qofkan ilaahay mid aqoon deeniyo meeshaan la maamulina abtiyaalow meesha qolka ma soo furtaan waxa amay mud ma iga gashaa idin ku raginaaso maxaa khaldan maya arrintan soo gabagabeynaya marka niyo soo koob niyo hadalka waxa weeye hadalka saarnaan hadalka laba saarnaaday waxaa samaysaa baalka soo koobniyo maanta dhan baan waxa weeyaan joogna meesha aad iyo aad yaa hadlaya marka waa nin jid waaqa
ما سفع وي اوكي فكرته waa dhiiban karaa laakiin de meesha aflagaada iyo nimankan maraxano ala soo jeediyay diiwaangelinta wadana waxaan leeyahay diiwaangelin iyo shaqa wadaane ha u jawaabina dadka maarag dad baa iska xanaaqi karo dad baa arrinta ka hor imaan karo waraaqaha la idinka daadin karaa candhuf baa la idinku tufi karaa waxa dee dulqaata xil baa idin saaran arrin aad iyo aad u wanaagsan baad wadaan marka xanaaqa iyo ragga gacanta fudud gadaal ha la geeyo ragga dulqaadka badan hore aad iyo aad waa salaamaya adiga hore u socdo hore u socdo إلى روي مسكلة أي مسكلة أبساق مدي تابع maad igu degtaa أبساق مدي تابع عليه قد أحرق أرتا ليهم waxaa ii muuqata maaragtay dadka soo madarag